marka janaak waa idin macneeyo marka waa wax la jecel yahay oo qurxoon waan arkaysaa inay qurxoonayeen dhalinyarada caawa waxaa intaas dheer abwaan shube oo ah maareeyaha murtida madadaalada golaha murtida madadaalada oo markii heesaha isugu dhacday gadaal u booday oo buug dheer wata oo qoranaya magacyadooda wuxuu u maleeyaa inuu joogo 1932 heesaha hirgale inuu xulanayo kooxda waxaa ka sii darnaa gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Fiish oo markii heestii muqdisho amaanteedii ay bilaabatay uu soo kacay waxaan moodayaa xoogaa inuu ridimka la qabsaday oo ciyaari doono ma yeeline wuxuu u maleeyay inay sugayaan oo ay soo dhaweynayaan salaan uu kala daalay waxaan leeyahay goormo dhexda fariisan dhex istaagi doonaa uu la qabsan doonaa ridimka laakiin salaantii markuu soo dhameeyay mar labaad uu ku soo noqday waa soo fariistay maxaa la yidhaahdaa martida sharafta leh oo caawa halkan nagala soo qayb gashay kooxda kalamaan runtii oo aan aad iyo aad u jecelnahay suugaantooda iyo murtidooda iyo runtii siday wax isugu aadiyaan oday cabdulla wuxuu yidhi dowladda waa ogolahay laakiin waxaan ogolahay markaan xil ka hayo waxaan leeyahay hadda caawa laga bilaabo waxaa tahay maareeyaha golaha kalamaan yaa tahay dikreeta haysataa marka war fiican lagaa maqlo wuxuu sheegayana wax badan baa khalad ka ah oo qofka nala dagaalo dadka uma soo dirno uu ka yar badbadiyey